guhaad cadha iyo gadood inkastoo guhaad cadha iyo gadood guddi loo irkaday gacmooda jiriyo go'aan shacbiye miyuu hadal guracay ku shacelin karaa intiisii bagabay macid buu garabsin karaa magafahadan kuidhaa gufe bayrahdadan godhan gubaadoon isodhan iskaloonin lehe u guntaday iskii gubaadoon isodhan iskaloonin lehe u guntaday iskee iskaloonin lehe u guntaday iskii gubba adoon isodhan iskaloonin lehe u guntaday iskee بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي سبحانه كاني ما انتهينا ونبدا وقلت روحه جواء يا محمد وحاهنا كسلام يا الضمان ومدى في السودان والدول الجودان وقضية جدا وحنونا هذا قلنا ضمان شعب الصومالي تشعير كله يدرين كله في الجنوب وحنونا هذا قلنا دولنا ودرين كله كسر جواري مثل كسر القضية حمد جوتا وحنونا هذا قلنا darayaasha qaranka iyo xisbiyada qaranka oo iyaguna markaba dareenka dadkooda la socday oo ka jawaabay weerarkana lagu soo qaaday muqdisho salaantaa kadib wafdigaan hogaaminayey waxaanu socdaal rasmiga ku soo marray dalka la yidhaahdo Conakry ama French Equatoria waxaanu sii maray dalka Ethiopia waxaanu kala kulnay labada meeloodba wax wanaagsan iyo yuhun fiican iyo qadarin dalka Ethiopia waxaan joognay 24 saacadood 24 saacadood waxaanu ku aragnay labadii wasiir ugu waaweynaa wasiirka arrimaha dibadda iyo kii finance-ka waxaa kaloo telefoonka lagula soo hadlay isagoo kormeer ku jira taliyaha ciidamada Ethiopia oo dhan ee cusub taasina waxaa muujinaysaa qadarinta iyo milgaha Soomaaliya loo hayo waxaa uga kulanay oo maanta tiro gudahood sabab ku kulanay wasiirka khaarijiga ee Chad oo aanu waqti ku qaadanay inaanu ka wada hadalno qadiyadda Somaliland wax badan oo waqtigeeda waxaan wadi dalka Conakry oo dalka Afrika daaweeyna oo madax ka yahay oday ah sideetan dheeraada konta sano soo jiray professor sharciga ah madaxweynaha magaciisa oo Alpha Condé dadkaasi waa nin ma aamusan mabaadi'da hantiyadaga ah socialismka waxaa ku dhacay inuu soo hadlay inuu beddelkiisa si ay xornimada uga qaataan Faransiiska dawladda tanday oo uu goostay Faransiiska ayaa la weydiiyey ma Faransiiska ku jiraysan mise waa ka xoreysan kaligoodkii Conakry oo qura ayaa soo xoreyna inta kale wiilashooda iyo wasi jirayna isticmaalkiisa joogtay inta ka dambeysay wiilashooda oo xornimada qaatay waa Ahmed Sinatul dalkii uu ka talin jiray waa arag siyaasadeed oo weyn weyn dadka iyo orodooda sida cabdul qaadray oo leeyahay talatana weerarkan xalalka yimid rays badan bay meel badan ka maray oo taliyaan lagu horeeyo oo ahaa hormuudka calaadka u weerara taliyaan looha ee u adeegay qoyskiisa oo asbadin shalay markuu tagay shirka Afrika lama gaban wuxuu Soomaaliya xaq u leeyahay inuu dhisto wana arrin inaga loo taabo waa xarakad soo yeedhay
laba qodob ay daarantahay waa laba gobodood gobob waxa weeye iyada oo iyaguna nagan waa ciidan shisheeye oo ilaaliyo ayaa waxay maageen dowlad ilaa islamutankii xor ahayd oo sanadkii dhaqaalaha boqolkiiba sideed kordho oo dadkeedu 10 milyan yahay oo horumarkii xooluhu ugu samaynaysa ayay maageen ku yidhaahdeen sidee gurigaaga Soomaaliya ugu casuutaa taasi waa gobolka ka garan geel koraakari iyagaa iska celiyey iyagoo intii iyay ka badan bay yidhaahdeen dagaalkana iyagaa iska celi kuwaas gobolka labaad waa Somaliland waxay leeyihiin markay leeyihiin maxay u casuutay Somaliland ma geydo maamuuska intaa leeg in lagu soo dhaweeyo bilgahala maahee maxaa maamuuska heshiisay waxaa la yaabanahay ragga xukuumadda ka tirsan ee saa ku tashaday marka hore goynta intaa leeg waxa ku konfaya hebel uma qalmo maamuuska iyo qarankaa intaa leeg uma qalmo maamuuska ah waa goynta intaa leeg waxay u bareereen waa la isweydiinaya waa laba waa rag soo wada joogay soddonkii sano u dambeeyey wixii ka dhacay dalka iyo Somaliland wixii loo geystay dad xogwaal u ah way yihiin dhammaantood garan maayo iyadoo taa hore qaray waxay tan ugu dareen waa ta saddexaade Somaliland taariikhdeeda yaqaanaan oo meel walba ay ku qoran tahay oo ay ka waxayaan markii loola jiray Soomaaliyadii hore ee bayaan ka midka ahayd inta taariikh lagu faano miisaankeeda Somaliland baa ahayd waa koy ma jirin dad hore Afrikaana oo ku yimi isticmaalkii u yimid saanta caddaa badan wax kuma seexan anagu kuma seexan mayno ma jiro dad Afrikaan oo yidhi dadkaaga ku dhal gabadhaadu ilmaha calooshiisa ku dhigta dadka iyaga ee markay fooshahay naga dad kale oo yidhi ma jiro markaanu doono xorriyadda waad haysaa anaga nama goysanaysa heshiis baynu ku nahay inaad nala joogto waa saddex qodob oo Somaliland gaara markii isticmaalku qarnigiisa iyo tobnaad daqiiqadii Afrika soo galayay lama wadaagto dee qolada koonfureed inay wadaagto ta kale ee ugu fahmay adduunkooda marka waa halgankii dawaawiishta Somaliland booda ahaa oo ahayd oo tare xulaa Somaliland oo ciidankii dawaawiishta Somaliland u ahaa waa kii Afrika ugu horreeyay ee daawado soo baxayso waa ta saddexaad markii Soomaali gobolada haleesay dad iyaga oo siyaasiyiin iyo soomaaliyiintoodii maxraqooyintooda madaxda oo Soomaali oo dhan ka xeeyay oo dawladda Ingiriiska boqortooyada fadhiistay wax ka socday inaga jira guddigii Suudaanada iyo odayaasha salaadiinta ka soo Abdullaahi Suudaan Abdurrahmaan iyo Suudaan Biix Fay oo maanta kalma sharaad Somaliland ahay ee koonfurmay ahay markay Soomaali isqoonsatay ee qaranimada lagu heshiiyay isku diiday isku maaqaafay wixii ka dhacayna tii hadiyada gumaysiin ayaana gumaysiin waa farayay dhiibada fursadeen oo ka qaad oo halkaas way soo jabaan waxay waxaan garan waayay halka ay wax ka eegeen markaas qodobka ay ku hudiseen Somaliland ma galiyeen markaas maxaa loo maamusay anaga taariikhda ay soo garanayaan oo tii dambeysay wixii ka dhacay ay ogaayeen سيئة واتي كفتر باي كاتر هو باي كونهم يكون قرارين جديد سوماليا طالوا وغيره وكتر علمنا أرضبان فقدر علمنا أهبان فقدر علمنا قرن بان فقدر علمنا حديث بعد عدودان فقدر علمنا وين هم إن شاء الله مانتا Somaliland oo badmaayo Somaliland oo badmaayo Soomaali soo hawaysan saashan midowga Somaliland sabab maxaa loogu baqayaa Somaliland waxay ahayd Somaliland tii magaalooyinkeeda laga burburiyay 300 oo guri oo ku hargeysan yihiin ayaa madaxiyadii loo baraacay meeyay oo malkiina fi kulli shay loogu soo waday markaas ay dib u satay إلى عوام الدروسة ذاتك عداوة الإحجان Somaliland وقرآن التي القضية أفلانا أي سنة إلى العلوس والقرمان بالكاشيين والقرآن المشهر المتوتر والكلمة والقرن يحب المتوتر أهم ما تعلم مسكرين بل يرون هذا الولايشين بدر مسحيحين
hadday awoowayaashin ingiriisu adduunka waxay wala diyaareen miciise dalac ka dhisteen hadday awoowayaashintii la islaayay ka soo dhiciyeen laydinka dhaqmaa maanta idinka ragga sugaya waa dhalinyaro aabayaashoodii ayeeshada galgaas oo galeen waa reer Soomaaliya baa cid kala qorin harba waa himad fayda waa ku iman qalayna la haysan وأنا أتجمع على الله كذا كسب حقيقة قدر فيها هنا هذا كسب حقيقة على الله ساد إتلانا إلى هذه كوفي جوجو مانتا وهذا يا باي يسوي لي كم من ما هي إتلا قدرني يا ربيانه تناسى ويا ربي قال ما أوران كسمة ما أوران بعدنا ما أوران قبل ما أوران مبديش ما أوران سوي ما أوران كرافة ما تشوفنا كانت تروح حسي سوي ما كارتو وهذا شكرا ما راح نقول لا من دولة دولة متحسن كم ليس والمسلمين دي جرنا شو بعته حجرا شو بقولي وهذا بعد عين وحكون الإسلام كان من يوم طلع على مرة قاضي وحبدا يشوفونه وحكون حجرا المسلمين وقع في سوق سوشيا ومرة سوق عتاب بالمدة وحكون كذا يسير هذا يسير هذا وحنا أنا شيله محل كوشينا هذا المدير يا هذا كرتيا يا هذا المدير بسنة وحيس وديا ما تيجي واحد عين إلى هذا من الضحك له دوسة غير ما قالك هذا سوى لا يتعامل هذا ساتك لا يرجع موتني سوى بمسؤولية وحرق بوسته إلى قضيتنا كانت أيوة من حول الفراغات كبرى هنا واقعيسا أفضل الدربين أريد أن أحضر ثالثة لك أنت هاجري جيت أسافر بالك سيرتي كذا سواف مني سورة أمامي فرنسي سوى كذا إنجليز سوى كذا اسمه قالوا اسمه قالوا كان مدير يدا قالوا تودي يسيدي هي هنا حصول ربنا فكره ولا عادي فكره ولا عادي وحنا سوى بالكبير يا سوى بودي هنا بقى مشيا وهو بقرنا يا فلذلك عمايله تمرعين ويقولون عيسو عموما هم يقولون يفرزان ترى ولا كلامنا بقيتوا وين قال حسن صفرك وبحر عالمك فرق لهم بحيي أروح إلى غير فوق الدولة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته